waxaan ku oran karaa madaxweynuhu maba ogeynba 6 bilood kadib buu ogaaday in wasiirnimada laga qaaday saaxiibkii baan ku keenay shir soodad wax lama gelin halkiiba ku cancel gareeyay yaa waxyaabihii lagala wada hadlay waxa kamid ah laakiin sidoo u cancel gareyn karaa wasiir kula mid oo xukuumadda aad ku wada jirteen ila madaxweynihii mu ahayn dalka minister baa waxa doonaysa hadallada in banaanka wada keeno prime minister sidoo ahaa waa everybody know awoodii madaxweynaha waxaan waalayba inamada soo awood madaxweyne mar heleen madaxweynuhu joogay hamay jooga buu awoodiisa wareeji soo maadan garan dabeedna waxaan iminka lala fadhiisan waayey waa niman kursi aan loo dooran dhadhamiyey marka fadhiisan maayaan ilaa kii gaaraan marka waxaad leedahay maxamuud xaashi baa shirkaa baabiyey qodobadii heshiiskii madaxweynaha ma ogeysiisay sama u sheegtay marka madaxweynaha waa ogeysiin laakiin madaxweynuhu waba muxaasaraysna bal macna eriga 4 bilood baan arki kari waayay madaxweynaha si aan arrintaa ugala hadlo yaa rag baana ka shaqeeyay isagoo ka mid yahay dawaka maadaama madaxweyne isweydeen cidda xalka ka qaaday wasiirnimo yahayd marka maxamuud xaashi iyo qoliyo kudladiisa ka mid ah waxaan ku oran karaa madaxweynuhu maba ogeynba 6 bilood kadib buu ogaaday in wasiirnimada laga qaaday haddaan taa ku idhaa ka hor marka waxaad leedahay maxamuud xaashi wasiirka madaxtooyada ayaa dalka ka talinaya haystay markaa saa ka talinaya waa run everybody knew waxyaabaha waxaan u sheegi weyneyd annagoo ilaalinay danta qaranka guud baan uga aamusnay waxaanaad hadda iga fogayso maanta maxaa keenaad sheegtaad waqtigaa u sheegi weyday xaaladda taagneed daadaa weydiiyo hari waaye